mukhtaar roobow cali abumansuur oo horey u ahaa ku-xigeenkii ururka al-shabaab oo bishii disembar sanadkii 2018 dowladda soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa bixiyey waraysigiisii ugu horreeyey. mukhtaar roobow waxa uu tan iyo bishii disembar 2018 ku jiray gacanta dowladda soomaaliya isagoo mar lagu hayay xarunta hay-adda nabad sugidda ee NISA sanadihii u dambeeyeyna ku jiray xabsi guri. mukhtaar roobow waxa uu la soo xidhiiray idaacadda VOA waxaana waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Haaruun Macruuf. qaybta hore ee waraysigaasi ayaa Haaruun Macruuf uu ku weydiiyey mukhtaar roobow sababta oo uu la soo xidhiiray idaacaddani VOA. su-aasha ugu horeysa rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan marka hore maxaa kugu kalifay xilligan inaad nala soo xiriirto oo aad go'aansato inaad nala hadasho? walaal marka hore waan ku mahadcelinayaa inaad iga aqbashay waraysigaas inaad iga qaado adiga iyo VOA-daba. waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii ka dhiidhiyey markii aniga laisoo afduubay oo amisom isoo afduubeen dal iyo dibadba soomaali iyo kayrba xataa qodobda beesha caalamka haysom oo kale shaqadiisuu ku waayey runtii isagana dadkaan u mahadcelinayo ku jiraa. waa mahadsantihiin baan leeyahay. su-aasha haddaan usoo laabto anoo hoogaa hirgebsan oo yar xanuunsanayo waxaa igu kalifay waxa weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018 bishii 12 ayaa la isoo afduubtay. ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay. aan telefoon lai ogolayn oo xuquuqdaydii asaasiga ahayd lai ogolayn. wax kastoo bani aadan aqulahaa aan lai ogolayn. marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursadaan helo inaan sheego waxa meesha ka jiro, xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladaas. waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin? amnigu maraaxil buu soo maray. markii hore la isoo afduubay waxa weeyaan waxaa la keenay muqdisho 6 bilood xafiiska hay-adda nabad sugidda ayaa lagu hayay. fahad yaasiin baa taliya ka ahaa. 6 bilood marxalay ahayd. muddo kale iyadana guri kalaa la geeyey oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahaayeen ciidanka waan la dhaho waa shaamid ahoo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday gaalkacyo iyo cadaado iyo dhusmareeb baa muddo i hayay. niman iska maleeshiya fawdaawiyiin baa ku badnaa. waa kuwa qorkayda isku xabadeeyey oo qorkayda nin lagu dilay. kadib waa laga soo bedelay oo guri kale i keeneen. isla warantiibaa la igu soo wareejiyey. ammaanka iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo. waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday, dagaalka aad ka soo horjeedo, hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay, inaad arrintaa fursad aan ku siiyo bal u kala cadayso mowqifkaaga dadka Soomaaliyeed marka aan fursad ku siiyo. horaan u cadeeyay kaas walaalahaal inadoo aada u mahadsan. hadda kaas xabsi ku cadeyn maaye horaan u cadeeyey kaas wararkaygii dib u raaco hubi mowqifkaygana weligiisa waa caddaa. anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaarteed leedahay uu nin shaksi a ku leeyahay haddii dadkao dhan ku doortaan iyagu ku aqoonsan mayn annagaana wixii haysana. haddii lagaa soo badiyo dawladda ma soo dhexmaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun doolkii inaad ku laabato. taas haddii waa xaliitaabado waad garanaysaa. laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay. qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo la kala helo dadkuma arko. saas weya. hamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda hamigaaga miyuu isbedelay? maya walaal isma bedelin. wax badanna waan akriyey
runtii hadday cibaado tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa amiga iyagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadka iyaga iyo dalka iyaga aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doona insha allahu ma niyad jeli maayan haddaanan dhiman insha allahu waan sii wadi doonaa masiiradaas ma joojinayo. kaasi waxa uu ahaa mukhtaar robow abu mansuur oo waraysi gaarsiiyey laanta af soomaaliga v o a isagoo ugu waramayay haaruun macruuf. dhegeystayaal waxaa naga xasuusinahay in v o a ay la xidhiidhay hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta madaxtooyada soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ilaa haatanna kama aynay soo jawaabin codsigii waraysi ee aanu gudbinay. sidoo kale v o a waxay la xidhiirtay howlgalka amisom. sarkaal ka tirsan amisom waxa uu noo sheegay in mowqifka amisom uu yahay kii lagu qoray war-saxaafadeedkii ay amisom soo saartay 15 Disembar 2018 war-saxaafadeedkaasi oo beeniyey in amisom ay wax lug ah ku lahayd qabashada mukhtaar robow iyo soo wareejintiisa magaalada muqdisho labadaba. qaybo kale oo ka mid ah daba waraysigaasi waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha soo socda.